qoyska gabar loo dilay sawirka Axmed Madoobe dartiisa ayaa war culus soo saaray magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxa ka dhacay Jimcihii 23 bisha 8 sanada 2019 dhacdo aad u xanuun badan ciidamo uu hogaaminayay Colonel Abbas Gure ayaa magaalada Ceelwaaq waxay ku toogteen gabadh dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Ridwaana Nuur Ibraahim Muumin. Ridwaana waxay u geeriyootay dhacdo ugub ah oo ah inay diiday inay lusho sawirka Axmed Madoobe sida ay shaaca ka qaadeen qoyskeeda. waajidka laamiga dhinaciisa oo dad badan ay joogeen looga codsaday inay qaado sawirka Axmed Madoobe oo ay lusho balse waa ay diiday. markii in dhowr mar ay si canaan ah iyo qaylo ku dheehan tahay loogu sheegay inay sawirka qaado oo ku dabaaldegto ayay si ku talagal ah u qaaday dabadeedna ay tuurtay. markaas ayay xabado ku fureen askartii Abbas Gure sida ay sheegeen goobjoogayaal. aabaha dhalay ayaa warqad u soo saaray cadaalad uga dalbaday dowladda Soomaaliya oo ciidamada dilka geesi ay u diiwaan gashan yihiin. warqadan ayaa sidoo kale waxaa la ogeysiiyay xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida waxaana laga codsaday in gabadha lagu dilay qaadka sawirka Axmed Madoobe markii ay diidana lagu furay rasaas halkiina ay ku dhimatay gabadha Ridwaan Nuur la yiraahdo. haddaba sidoo kale qoyska ayaa waxa ay xeer ilaaliyaha ka codsanayaan in ninkaasi la horkeeno cadaaladda sida foosha xunna u laaynaya dadka aan waxba galabsan ayaa lagu yiri warqada loo diray dowladda federaalka ee Soomaaliya. qoyska gabar loo dilay sawirka Axmed Madoobe dartiisa ayaa war culus soo saaray magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxa ka dhacay Jimcihii 23 bisha 8 sanada 2019 dhacdo aad u xanuun badan ciidamo uu hogaaminayay Colonel Abbas Gure ayaa magaalada Ceelwaaq waxay ku toogteen gabadh dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Ridwaana Nuur Ibraahim Muumin. Ridwaana waxay u geeriyootay dhacdo ugub ah oo ah inay diiday inay lusho sawirka Axmed Madoobe sida ay shaaca ka qaadeen qoyskeeda. waajidka laamiga dhinaciisa oo dad badan ay joogeen looga codsaday inay qaado sawirka Axmed Madoobe oo ay lusho balse waa ay diiday. markii in dhowr mar ay si canaan ah iyo qaylo ku dheehan tahay loogu sheegay inay sawirka qaado oo ku dabaaldegto ayay si ku talagal ah u qaaday dabadeedna ay tuurtay. markaas ayay xabado ku fureen askartii Abbas Gure sida ay sheegeen goobjoogayaal. aabaha dhalay ayaa warqad u soo saaray cadaalad uga dalbaday dowladda Soomaaliya oo ciidamada dilka geesi ay u diiwaan gashan yihiin. warqadan ayaa sidoo kale waxaa la ogeysiiyay xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida waxaana laga codsaday in gabadha lagu dilay qaadka sawirka Axmed Madoobe markii ay diidana lagu furay rasaas halkiina ay ku dhimatay gabadha Ridwaan Nuur la yiraahdo. haddaba sidoo kale qoyska ayaa waxa ay xeer ilaaliyaha ka codsanayaan in ninkaasi la horkeeno cadaaladda sida foosha xunna u laaynaya dadka aan waxba galabsan ayaa lagu yiri warqada loo diray dowladda federaalka ee Soomaaliya.